waxa ku qorneed beriga waxa soo baxday heestii Sahra Halgan ay qaadi jirtay cabaar baan ku sugayo cadceed ay damaqdo cidle kaaga maan tegin cayrina ismaan oran kaamanaan calool go'in heestaas beriga soo baxday sida digsiga nuuray tumaashidii digaagood jacaylkiisa dul muruxay dusha rooli gubatay marnaba dayras iska maana markin oo xagayga malabiye maskaga malabiye iyada laftirkeeda goormad soogaatay inaad abwaan tahay marka laga yimaado markuu mushaarku soo dhacay kabar tagay lacagtii qaad ku soo qaaday asxaabtiisii la soo fadhiistay kadib markuu iska soo marqaamay soo kacay oo gurigiisii yimid gabadha ay ku tiri kambeelkii waxbaan haynay dee ku shil 2,000 shil waxaan dee waxba meesha galay dhibay deetana gabadha dhalaashay gabadhii dilay kuwii siir yara aabay yiraahdeen ku yar sidaa ugu eegay dhinacyada ayban hal mar isha waxaan qac ku siiyay qof nin halka horteeda soo fadhiyo miisaska yar maarta dharka la dul saaro kabaha lagu iibiyo nin fadhiya macaawis xiran qorisita indhaha sida leebka sayga dhex saaray ku soo dhawaada YouTube-ka Highmark waxa marti maanta noo ah Safwan Cabdiraxmaan Cali oo ku magac dheer Tokyo Safwan soo dhaw waa mahadsantahay Yaxyo 100% waana ku dhawahay Highmark iyo barnaamijka iyo adiga iyo madasha intaba Safwan wuxuu kugu baxay Tokyo ma indhaha madina yaryarto waxa taas way kugu baxay mise safka kale kugu baxay horta nin indha yaryar ma ihiyo wala arkaa kowde laakiin history u noqonaya hadii ay baydankeeda leeyahay 2008 iyo 9 koox la yiraahdo Japan oo halkan guriga sama ka dhisneed ayaan u ciyaari jiray ka hor layma oran jirin laakiin kooxda Japan markaan u galay ayaan Tokyo Japan noqday halkaas igu baxay okay halkaas iga soo raacay magaco okay ma jirtaa hibo kale oo aad marka laga yimaado jilaanimada hibo kale ma leedahay oo aan jilaanimada ahayn wallahi hibooyinku way fara badan yihiin hibo faneed marka laga tago waxyaabo badan oo ilaahay gaar iga dhigay waa jira laakiin haddaan babul ka dhigo waa intaas ma garanaysaa kaga soo wada baarkin baan yara dhiganaya ilbaad ka baqaysaa may ayuunaaska overcoat bira baan u xidhanay kaase okay soo ridaani laakiin waxa jirta mataqaanaa waxyaabaha maaragtay adiga ku gaarka ah dee inkastoo ma garanaysaa aynu iska nahay dad Soomaaliya oo in muddo adigu la oran karo imanka laga soo bilaabo 19kii intii ka dambeysay dad la soo yara qabsanaya bulshada iyo caalamka iyo oo wax walba dee ma garanaysaa aan iska baahinayna wax private leh marka xoogaa yar oo private ku marka hibooyin kale waxa leeyahay waa private way okay majaajilnimada marka laga yimaado waxaan ogaa inaad heesa jacbura iyo waxaa samayso iyada laftirkeeda goormad soogaatay inaad abwaan tahay marka laga yimaado majaajilnimada horta abwaan baan ahay ma oran karo oo dad badan horta abwaannimo imika iska sheegtaa way jiraan laakiin abwaannimadu waa wax age lagu gaadho marka aad 60 taagan tahay ayaa title-ka abwaannimo la qaataa ninka warrami kara 60 markuu taagan yahay wuxuu soo dhaafay 60 ka uu soo arkay 60 soo socdana saadaalin kara heerkaas lagu qaataa abwaannimada laakiin iska hal abuur yar baan ahayo waxa si yara geegeeya ilaahayna ku astro marka adigu waxay ahayd 2014 waqtigii fankaan soo galayna 2013 bay ahayd marka wax yar u ka dambeysay markaan ari inuu dadkani waxdooda sameeyeen mid isku yara geegeysi laakiin badanka heesa jacbur waxaan qaaday saad imka hadalka ku jirtay asxaabtayda badankooda samaysan sida guri cishqi iyo Cabdiraxmaan Kadle iyo Cabdiraxmaan Daale iyo Kaysar nin la yiraahdo iyo nin jaamac la yiraahdo iyo ragaas sameeya dhabaantooda xakan ka salaamayna wax ma nooga taaban kartaa aniga iyo daawadayaashaba waxyaabahaas aad samaysay dada markay saado nin badweyn lagu dhex tuuray waad noqonaysaa moogta wixii wax ka soo qaban marka la yiraahdo waxaad soo qabatay garan maysid laakiin saaxiibkay guri cishqi baan soo qabanaya iyo Cabdiraxmaan heesay isugu tageen oo sida digsiga nuuray tumaashidii digaagood
jacaylkiisi dul muruxay dusha rooli gubatay taasaa jirtay. mararka qaarkood markaad dadka ka qoslinayso adiga dib ma iskugu qosasho ereyada afkaaga ka soo baxaya ama actingkaad samaynayso? wallaahi horta ilaahay bayna waa ka xaaraane dee ma mar weedha aad leedahay imka su-aal oo kale aan ku weydiiyey ama hadal dee filimkeena ku jiray baan ku weydiiyey feedback aad igu soo celinaysa in lagu qosliyo waa laga yaabaa, laakiin waxaan odhanayo may taasna dee dhaqan ahaan xataa suugaanta waxu fiican ma aha. Soomaalideeni hore waxaa mahmahan loogu soo qaataa martidu marka inoo timaado in martida soorayno, martida waxaynu ku soornaa cud wixii aynu hayno soo maa, casha loo soo sameeyo, gogol la siiyo, cuntadii aad usoo karisay martida haddaad dacarkaa kaga bilowdo la cunto ka war waa yara dhibaato soo maa. martidaada dee waa inuu cuntada siisaayo dee tanaad ka baxdayo iyagu cuntada aad u keentay ama ha soo reebaan ama ha wada dhameeyaane iyagaa ku sooran soo maa. saasoo kale waxaan uga socdaa dadku marka ay yihiin dadku daawanaya idin majaajilaynayso waxay marti kaaga yihiin waa qosol. markaa qosolkii haddaad ka kala shaxaado dee nin martidiisii cuntadii la galay baad noqonaysa. markaa taa waan iska neero ilaaliya badankana wallaahi ma arko waxaan anigoo wixii la dayna ku qoslo, laakiin qofkaa feedback igu soo celinaya inigu qosli way dhici kartaa, waana dhacday marar badan. ma jirtaa waxyaabo aad is leedahay iyo dib ku celiya si aad u hagaajiso ama aad dib u samayso ma jiraan? inkastoonan da' weyneyn oo waqti badan aan odhan kara dee igamu tegin, haddaan odhan lahaa haddii dib lagu celiyo waxaad soo sixi lahayd ilaahay been waan ka xaalada talo maxaa soo sixi lahaa. waxaan soo maray way wada saxnahay. intan wax arkayay wax ii wada sax baa soo wada maray, ilaahay been waan ka xaaraanay. intaad wax jilaysay yaad ugu jeceshahay inaad dib ula jesho ama yaad jeclaan lahayd inaad la jesho ood ku hamiyeysa inaad mar uun garab istaagto agtiisa kasoo muuqato ama agteeda kasoo muuqato? horta gabdho iyo wiilalba dad fara badan oo jilayaasheenan reer Somaliland ah wax waan wada jilnay, jilin waan ka wada qayb qaadanay dhammaantoodna waa dad wada active ah, inkastoo hadda mid u tiri gabdho wiilalba aanan halkan ku koobi karin. laakiin waxaa aad fani u ahaa 100% oo markaan wax la jilayay waxyaabihii aan la jilay ay aad favorite igu noqdeen. halkan waan ka salaamayaa saaxiibkay marna abtigay guri barwaaqo aad baan u salaamayaa. guri barwaaqo waan salaamayna anagu. maxaad hiigsanaysaa mustaqbalka ama aad rabtaa xageed doonaysa inaad gaadho? ma jiraan waxyaabo kuu sawiran ood is leedahay waxyaabaha gaadha ama waxyaabaha qabo? mustaqbalka dhow haddii ilaha idhaahdo mustaqbalka labaa loo qaybeeyo mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhow. mustaqbalka dhow haddii ilahay raalli ka noqdo waxaan is leeyahay aad noqotid magaranaysaa qolyahan ogokolada oga xelataa tayga isku kejisaa deetana fadhiisataa maxkamadaha lawyer baa is leeyahay noqotid haddii ilahay raalli ka noqdo. إن شاء الله بإذن الله تعالى. ودادي ما هي ساونو ما برتها الله يعني ما دام يسوى علم اللوج الله يرحمه قالت اللوج ترى هذا اللوج أنا إسلام هو ينمال بتلقوه اللوج برناه كسيقول اللوج ها اللوج ما حد كبرنا اللوج سو كنت تكوده يعني اللوج أنا وحن دين تنبل من مغانا مود اللوج وحويا وحن طريقي سي هاي مكو أسلي هاي حولي ساد بلودي nina saaxiibana hayo guri cishq la yiraahdo waa biigu horeeyeen kuwa loo yarweyn marka xagga ma garanaysaa cilmiga waqti dhaqaaqistiisa waxa weeyaan dadka aanu daliishadeen yiraahdo wallahi idinka waxa la wado isagu ka dhex boodayo imka maxkamadaha dadka waa gariyay qaan oo garanaysaa marka adkeedib marjile insha Allah ma jajlaysto ma single ba saw masaxaas bulay wallahi su'aal heer caalami baad madaxa iga saartay. رايدنا وقت قال تاجي هاي واسنجل بيجي لكن الحمد لله رير وصامري لا برهر بمول وصامري لكن أنت موجود تشوفه لا بدو تمر بعد بن سلام يا شرف يا كرام اللي في سي حمدا لا بدو بعد بن سلام يا سيدو كلا واحد سلام يا قبل بيجي شوكته سامية الله هذا سامية صفوان عبد الرحمن علي عاد بنكوش على هابو وكسلام يا
maxaa noloshaada xalada u yeela nolosheeda xaalad waxaa u yeela inaan markasta familigayga dhex joogo ninka hooyada iyo walaalahay baan la joogaa inkastoo laba ka mid a walaalahay Jamaal iyo Cadnaan ay wadanka banaankiisa ku maqan yihiin waxaan la dhashay 6 caruura waxay la joogaa Nafisa Ikraan Maxamed iyo hooyaday xaaladda nolosheeda waa iyaga markaan soo toosay inaan arko markaan sii seexanayna inaan arko ma jirta cid aad xagga ka salaami lahayd ama aad fariin u diri lahayd khaasa cid khaasa waxaad maad gudaysid cid khaasa horta cid khaasa marka la yidhaahdo dadku hal dhinacun bay wada yaacaan moogti laakiin cid khaasa waan salaamayaa si khaasa waxaan u salaamayaa dalka jamhuuriyadda Somaliland ee joogno heerka u sareeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan leeyahay mudane madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh weli way igu sii taalaa aad baan ku salaamaya maxaa kugu dhaliyay inaad majaajilista noqoto ma asxaabtaada iyo familigaaga iyo dadka kugu xeeran ayaa ku yidhi niyow hibadaasaad leedahay waa inaad majaajilista noqotaa mise adigun bay sugaaday inaad hibadaa leedahay waxaa igu dhaliyay horta waqtigii aan iska yaryarayn soo gelidda fanka aan soo galay iyo hore cararkayga hore way kala horeeyeen oo jilin markaan dee dugsiga iska joognay waxbaan iska jiri jirnay waxbaan matali jirnay laakiinse waxaan u aaneeyay oo ka qayb qaatay fankayga inaan jilinkaygan iyo waxaan sii horumaraan number 1 talaabadii u horeysay aan qaaday Nagiib Cabdiraxmaan Rashiid wadna kaabe walaalkay qaaliya oo aad u salaamayo isagii qoyskiisa iyo carruurtiisa dhammaan waxaan leeyahay salaamaya iyaga aan u aaneynay horta talaabooyinka xagga fankayga jacayl markaad maqasho kelmadda jacayl maxaa kuu sawirma ama khayaalkaagu muxuu noqdaa jacayl marka aan maqlo farxad ba horta ay sawirata inkastoo hagardimadiisa iyo hagardaamadiisa iyo waxaas iska badan yihiin haddana waxaan hagardaamo iyo hadimo iyo ma garanaysaa inaad jabto iyo inaad kufto iyo inaad kacdo aanad u soo marin farxaddiisa ma heli kartid marka jacaylka horta waxaan u aqaanaa waxaa kale marka xaggaas ka dhigo farxad fanaaniinta fanaankee taageerta ama fanaanatee taageerta wallaahi fanaaniinta aniga godob inaan ka gala ma jecliye laakiin horta fanaaniin badan oo taageera way jiraan waxaa laga yaabaa qof codkiisa aad ugu raaxaysato markaad dhegeysanayso ama gabadh codkeeda markaad dhegeysanayso heesaheeda aad ugu raaxaysataa jira fanaaniinteeni hore Axmed Moogaa jecelahay sidoo kale fanaaniinteenan dhexe dambe ayaan odhanine Maxamed Axmed Bakaal Ciro aan ka salaamay saaxiibkay okay ma noogu tuuri kartaa hees ka mid ah aniga iyo daawadayaasha fanaanka heesiisa Bakaal ama Axmed Cali Cigaalba Bakaal waxaan ka helaa heesiisa heestii odhan jirtay halkay ka bilaabmaysay aan xasuustay sug heestaa u jeclaanay waqtigay soo baxday hawadiya daruurahaadkuba ma seexdo hooy uu ka waaye daruurahaadkuba ma seexdo hooy uu ka waaye walba afwan wax noocaasa bay ahayd waan malaynaya heestaa ma wada hahaye heestaas aad baan u jeclaa heestaas aad u jeclay heestaas maxaa dareen noocay ku leedahay ama maxaad ku soo xasuutaa markaad dhegeysato waxaan aad isaga ahaa mataqaanaa dadka iska jecel heesaha daadiska ah inkastoo jacaylka ka dhex gurigan jacaylka jecelahay jacaylka khiyaalkiisa oo ii sawiran farxadda uu yahay haddana heesaha ma aragtay ma oran karnaa markaa dumarka oo dhan baa ku dayriyay wallaahi bilaahi ilaahay been waa ka xaaraantaana dee waxaa ka jawaabi kara uun ma garanaysaa xalimooyinka ya laakiin waan isku wanaagsaneen horta dayra kamaanan marnaba dayra iskamaanaan arkay oo xaggayga malabiye ma iskaga ahay malabiye okay maxaad ku jeclaatay laakiin heesaha daadiska niyow waxbaa ku jeclaysiiye soo maha waxaan aada u dhegeysan jiray ninkii la odhan jiray Digfer waad garanaysaa allahu naxariisto Digfer allah yarxam raaximiin heesaha badanka daadiska ugu qaadi jiray sidoo kale ninkan heesiisa waan iska dhegeysan jiray aniguna hadda ka hor heesan sameeyey 2-3 heesood sameeyey oo qaar fanaaniin qaadeen iyo midaan ugu qaadayba daadis bay badnaayeen marka
xagga maaragtay dadku dee marka xagga jacaylka u wada yaaceen taw aad aragta un jacaylkii aan jeclaaba leega wada horreeyey kuyu aad silmeed geli saf dheer wadamada qabsan waa kaa xagga buurigaba hees la yidhaahdo tago ha igu soo noqon waa sameeyey tago ha igu soo noqon maxaa nooga taaban kartaa ها صاحبكي محمد حسن حسين دقال يرات ما هستاس حكم ده ريدي اسكي صديبا بريغان يراس اسكي سدا xoog u jirayo iskuulka waqtigan iskuulka dhigan jiray iski sadii bay soo kacay moogtay gadaal bay kaga soo baxeen gadaal bay ka soo wada kacayaan mid jaamac la yiraahdo iski sadahayga kamidina waxaad moodaa mararka qaar markuu ii hadal hayo oo kale ama markuu meel ii dhow joogo ممكن يوم ملها قدوي هبل ملايين حسوست وحبا سنة صح حسوستو جامعة بقى بابيسو حن كاغورو ما يرى مركا هستاس اريد دي وحكم لها لا السؤال هاي عاود ويديني سيبا ان ان كل جودي وصودا حسوستو نقنيا balaga yaabaa daadiska waxa kugu aan wax weeyaan waa reeb ruucanimada waayo wiil anu saaxiib aan reeb ruucaha ayaa wuxuu yiri berigii hore internetka la geli jiray internet cafe-ga ayaa waan garan mari jiray buuri marka waan ka dhici jiray gala internetka buuri maxaa u sababa buuri marka inaad geli weydo wuxuu yiri nin waxaan suran jiray nin jilaac bal moodi doona isir adkeeda marka ma laga yaabaa inay taalab dirgeeda oo may horta adiga iyo bulshada mid baan doonayaan inuu sheego dadka badankooda ani wax yaqaan min reer Burca way jiraan Burca marar badan waa tagtagi jiray family-geena bay ku noolaayeen laakiin reer Burca ma ahi asliyan hargeysa baan ahay in reer hargeysa baan ahay inaan wax ku soo yaraan matalo inaan family-ga yara booqdo eedooyinka yarka deganaa mooyaane laakiin horta reer Burca ma ahi adduunka bidankeeda leeyahay xagga daadiskana tani mooyee marmarun bay waan aad ku sheegay oo marka xaggii jacaylka loo wada yaacay baan sir kuyuubad geliyo san xaggan kale wala yara bayda okay hees baa jirtay aad bari dhaweyd samaysay oo aad bedeshay oo qaad ka hadlaysay heestaas waxyaabihii kugu dhaliyay inaad bedesho maxaa kamid ahaa heesta ma bedelin sideedii un bay ahayd laakiin waan soo yara upgrade gareeyay okay waxaan arkay fanaaniinteena inta ugu badan waxay soo wada qaadeen fanaaniintii hore waliba kuwii ka jacay heesahoodii Allah u naxariistay heesahoodii bay soo wada qaadeen mid Axmed Gacayte heesiisa soo qaada mid Maxamed Mooga soo qaada mid Axmed Mooga soo qaada mid Axmed Cali Cigaal soo qaada mid Cumar Buula soo qaada adigu waa laga wada dabayay oo soo wada qaatay intaan fariistay maari oo kale fanaaniintii hoobalada ahaa wala wada fanaaniin kuwii hoobalada ahaa heesaagi waa kan heesaagi hore soo wada qaatay wixiisii jilayaal badan oo heesa baa jira maxaa dadku heesoodii soo qaaday oo dadka wax xasuusin weeyay role modelkaygan oo kamid ahaa Cabdi Hayba Lambad ilaahay cumriga caafimaadka baa u dheereeyay saasan heesta u soo qaaday heestan qaad ku qaaday dad badan xataa waxay moodeen heestaniyo inaan qaadka amaanayo ama inuu isagu qaadka amaanayo laakiin heestaas waxay ka sheekeynaysaa hagardaamada uu qaadku leeyahay ay ka sheekeynaysaa mar nin de mushaharkii u soo dhacay oo sawirka ay soo maras heesto nin mushaharkii u soo dhacay markuu mushaharkii u soo dhacay kabar tagay lacagtii qaad ku soo qaaday asxaabtiisii la soo fadhiistay kadib markuu iska soo marqaamay soo kacay oo gurigiisii yimi gabadha ay ku tiri kambiilkii waxbaan haynay de ku shil 2,000 shil waxaan de waxba meesha galay dhiibay deetana gabadha dhalaashay gabadhii dilay kuwii siiriya aabay yiraahdeen ku yaraa hadana feer yalla la dhacay mid yar oo aan dhalay midkii ka siiraa mid kale ka siiraa buu haduu aabay yiraahdo feerka aan ku miiso وحيد أن كبودو وان مرقامي معنى waa sakhraan de beenna maaho ninku markuu marqaamo iyo ninka sakhraansan waxba isma dhamaan waa iska magaranaysaa isyar alcali taalka u mooyaane labaduba horta way ka tegayaan haykalka caadiga sida normal caadiga ay ku jirno naftu way ka tegaysaa oo khiyaar kale ku galaya marka heestaas waxay ka hadlaysay sida uu sawirkeedu ka muuqdo sida ereydeedu sheegayaan sida qof kasta oo suugaanta ku tacalluqa oo ka dhex arki karo waxa weeyaan hagardaamo inuu leeyahay bay sheegaysaa hees wacyi gelin ma ahad kalarada jeceshahay iyo cuntooyinka jeceshahay maxaa kamid ah si imika haddii faaniskaaga oo kale qof ku casuumo uu garan karo wuxuu ku keeni lahaa ama uu kugu casuumi lahaaba
يعني horta xagga cuntada ayaan kaaga bilaabaya cunto la kariyo oo Soomaali karisa waxaan ugu jeclahay bahalka makaroonada la yiraahdo haddii casuumad la sameeyo makaronaha haddii aan isha saaro haa waa casuumad laakiin dad arki waayo chicken iyo maxaa ahayd tolay bahasha yar la jarjaran waxa la chips iyo waxa iyo hilibka iyo waa hilibku waa option kayga laba makaroon horta meesha la saaray haa bes favorite food kayga number 1 kaasa ka allahumma salli wa sallam barik alayhi kalarka waxaan aad u jeclahay midabka madowga imika waad ku labisantahay inkastoo wax yar buluugi dhex yaacayaan jacaylkaagii u horreeyey ee ku soo mara keebu ahaa jacaylkaygii u horreeyey 2005 2006 baa dib inoogu celis xasuus jacaylkaygii u horreeyey inkastoona jecla in magaciina halkan ka xuso haddana wallahi jacayl de waqtigii laynankuna soo bixin bahayd moogtahay inan aan isku macaamadahayn ayaanu horta aad baan isku ficlin jirnay oo labadeedana ardayda ugu yara waaweynay aad baan isku yara xinin jirnay oo maalmaha ka mid aan isku yara afdhaafnayo intaa waxay ka dambeeyey wuxuun bay guurinay inantan mad de waan iska yaryaray warqad baan u qoray ku socota hebel ka socota hebel in anigoo ah waxaan kuu soo dirayaa salaan ka soo goday kashka iyo laabta salaan ka bacdi markaan arkay sii jeedkaaga markaan arkay soo jeedkaaga markaan dhageystay hadalladaada markaan u fiirsaday habdhaqankaaga waxaa ii soo baxday inaynu labadeen isku soo baxayno wadnayaal iyo waxbaan kusoo sawiray shimbir yaroo afka wadna ku sidaan ku sawiray berigaa artist imika haddaan saa sawir xataa nima sawiri karo berigaa artist lan ku wanaagsanaa baan siri de waxaan afra kuhaynuna adigu intii warqadii baan u qoray ku yaray walaaliyiin baan ugu dhiibay deetana waan arkayaayo heblaaye warqadda buu ii soo dhiibayo intay saawa qaaday oy eegtay ayay meel saa ugu tuurtay dac shalay maaha daraadda muraayadu jabtay carab ayaan maalinkii odhan xataa ma qabaynin maalinkii odhan baas cuncunaayey hooyay ku tiraa kaa qadee ma doonay maanta ragga maas duuduuba casarkii anigoo guriga hortiisa iskaga ciyaaraya kubad ayaa kii yaraayada la yimi warqad buu ii dhiibay waa maxay walaala warqadan kuu soo dhiibtay markaa fariinsidaha iyagu kooda ayaa ku ahaa waaye warqadii baan eegay waan akhriyey waxaa ku qornayd berigaa waxaa soo baxday heestii sahra halgan ay qaadi jirtay cabaar baan ku sugayo cadceedda ay damuqdo cidle kaagamaan tegin caydhina ismaan odhan kaamanaan calool go-in heestaasaa ku qornayd oon garanay beriyaa soo baxday waan akhriyey kubadii aan ciyaarnay wixii baan ilaabay kaabada halkan iga dambeysa waxaa fadhiyo hooyaday eedaday kuwayga yaryaraa dumar kale ninkayga waxaa la arkay biiti ka jarjaraya jak weed farxadii biiti midhan waxay soo taagan tahay wadda toosaba saa noogu beegano iyadana waan arkaya waxay soo taagan tahay halkan iyo iminka ilaa iyo meel iminka inoo jirtaa haddaan qiyaaso ilaa iyo halka ay ku taalo diyaaraddu saaran tahay inoo jirta ay soo taagan tahay jagwur biiti baan halkay ka kacaya warqadii ki yaraaban warqadda soo tuurtay masuu guri xagee ka tuurtay markaad saa u laabatay waad si soo qaaday adigu in badan waan wada sheekaysanay laymanku waa kii berigaas soo baxay layn baan ka yara wada hadali jirnay habratayba maalmaha kamid ay ugu qabatay anigoo la hadlayo waa maxaad ka sheekeynaysaa waa maxay waxaad ka hadlaysaa waa jacayl iyo wax ka hadlayo telefonkii bay iga qaaday laynkiiyo qolkeeda geysayo todobaad baan wada hadlino markii dambe isku baan noqonayo adoo horta dhibaatooyin fara badan baan soo marnay hadda ka hor su-aal baad i weydiisay Tokyo muxuu kugu baxay kooxdan kuu sheegay Japan inuu galay wax kale uma gelin inantii hal mar baa saan u joognay xaafadii ay ka guureen meel ay tagtay iyo meel aan kala hadlo iyo aan waayay deetana waan isweydiiyey anigoo yaaban oo su-aal isweydiinaya ayuu ninaan saaxiibanahay gurwaarihe heblaay aan arkay hooy halkeed ku aragtay iskuulkan guriyasamo ay dhigataa sidii baan ugu soo bedeshay intaan kooxdii aan u ciyaarayay ka soo baxay xaafaddaa kooxdaa u soo galay maalin kasta iskuulka marka laga soo rabo halkaas aneegi jiray ardayda baarbaar baxrayn kuwa ka soo baxay kuwa guriyasamo ka soo baxay waan ishaan la raaci jiray nakata waxba waan ka waayay waxba yaanan hadal kugu daalinayna jacaylka ciyaalnimo lama ilaawee 2013 may walahi 2014 tartankii hirgalaygii fanaaniinta ee lagu qabtay Home Cable TV ayaa waxaa barnaamijka
qayb baan ka ahaa waan ka qayb galay show inantii halkan ma joogto iyadii carruurteeda oo kale waan salaamaya waa xaas ayaa soo raadisay magacaygii sida caadiga ah dadku horta afartii horun baa yaqaana magacayga caadiga ah Cabdirus Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa magacayga laakiin Safwan waa magac fanka oon la kowsaday magacana walaashay bay bixisay laakiin fankayga oon magac la kowsaday waa iskuulka standard 5 markaan ahaa ayay magaca walaashay soo raacay saas uu ku soo hirgalay Cabdirus baan isku naqaan inantii adigu maalintii waan soo wada hadalnay hello markaan usnire واسكا أنا كان مال بعد لك شايف كي أوران حاسس سمايو أدوك ما حاكو قد عيب حد سايقو سمايسي شو توح والبلمو وايو وح كلاكعية شو مبانا قد حفت هالشي إنا نيساحي بيهين مركا سيدا دي أنا أركتيهانا نواركاينا أنا قفكا مركا قفكا كير ديدن إيو قفكا كوغلوت كلا دريمسا أصحابي هاي وينو قامر كهرباء إني دتك يدين كوجرتو مركز ليغا سو هور baxday geem bay iska gacan jirtay inantaas inantii bay gutay inantaas oo nibii warqada kugu soo dhigay buug dhan oo soo qoray iyo sawiraan iyo waxa ay ugu dhacayeen halkan tagayna iyo ma arkin show inantina waxay ku tiri warqadii aniga waxba ima keenin dadana waxay ku tiri yada warqadii ma dhiibay iyo sawiradii aanu dhiibay anigoo arkaya ayuu horteeda ku gubay mana rabo waayaa halkii baan maalinkii oo dhan isaga calaacanay adigu markii dambe way warantayo saasaan ahayo ingiriiskay joogtaa reer baan yeeshay alxamdulillah baan ku mar hadda reer yeelatay aad baan adigii reerkaaga weydin salaamaya insha Allah reer badaaran noqda first love-kii soo sheed weydiisay qisada intaas oo dhan noo soo martay first love-kii bit aan ka jarjaray macna kaas oo ahaa okay waa qisaad dareenkeedu wadata maalintii kugu naxdinta badnayd maalintii kugu naxdinta badnayd niyo maalinka markaan xasuusto horta nin aan baqanin ma habal leeyahay badanka ilaahay wuxuu noogu hibeeyay waxaan fanka dadka waxa weeyaan waxaan dhahdaa alxamdulillah horta maadaama oo social media iyo waxaan dadka u isgaarsiiyay meesha istaagtaba marar badan meelo badan oo dad lagu magaranaysaa doonayeen la jirdila ama dad la doonayeen wax lagu soo sameeyo wajiga marka la garto waa la siiday oo ku dhaafay waxaan dhahdaa alxamdulillah inta wajigaaga la garanayo wax badan buu ilaahay kugu sahlaya laakiin 2015 ayaa waxaan tagay Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aad baan u jeclay ilaa ilaanka aad baan u jeclay waxaan soo raacnay anigii laba nin oo kale dabeetana madaxtooyada Gaalkacyo oo markaa deer kaliyaati oo dhisnaa inta kale dhismo uu ku socday ayaa meherad yar oo ka soo horjeeday labadii nin ay la socday galaan markay meheradii galaan banaankan iska istaagay magaalada iska daawanayaan laamidaas oo gawaadhidaas oo dadkan macawisa niman macawisa xiran oo qoryo iska wada sita dadka iska lugeynaya basaska kuraastooda basaska yar basaasiga la dhahdo kuraasteeda inaga waa tala iska wada dhex fadhiisto kursigii in baa xagga dambe loo jeedin rag xagga dambe ka galiyaan baabka la furay dumarka dambe ka galiyay waxaan iska daawanay sidaa ugu eegay dhinacyada ayaan hal mar isha waxaan qac ku siiyay qof nin halka horteeda soo fadhiyo miisaska yar maarta dharka la dul saaro kabaha lagu iibiyo nin fadhiya macawis xiran qori sita indhaha sida leebka sayga dhex saaray dan isha qabatay aniga ma dabeecad waxaya maanta adigu say sheegay dad qorqo ishaydu isla markaa ay ku qabato saasay ku haynay sidii eegaysa sida dad isha ugu gubtay shaydu ku gubmaysa ninkii oo dhalaaliga ka dhigay ma arkaa dhawdiyo dhalaalkiisu ma ka dhigay markaan cabaar ku hayay uu isna indhaha galka ka saaray aan galka ka saaray aan cabaar say isugu qabayn ayuu qorigii raacsan waxaan iga soo eegaysaa buur doof fartay ku dhashay soo adigu doof fartay ku dhashay saad maxaan iga soo eegaysaa raac waa ku raaciyay daqiiqadaha yar maskaxdeedu waxay isweydiisay ma xaraftaa waa inta labada yar isweydiinano ma xaraftaa oo maadurti xabad kugu dhici maayo baasha iska eego ha ka carar ninka u baal xaaftay iyo gig maskara dhigo intan taagnaa ay shownin la socday ana kan aad uga salaamay oo bedel khalad la dhahdo ayaa maqlay hadalkeygii uu soo baxay ninkii qorigii raacsaday cabaystay soo kacay oo doonayay inuu waqtigii uu hadhay ka kaliya u taabto bariyaas faan maxaa ugu dhacay maxaa nagu dhacay meel garanaynaa naclad bulshada annaga halka nooga badbaadsayo
ما هذا كوب بودي هان راح كيسين تراعي أين بيقولون هو كوتشر ده والله هرت تشارلز تلك بتلك ما له هذايو أنا قلت قريبا يستجا كل جي حتى هيل لها كمدة لها بين واقع حرام وهي تيسي وش كده يعني هذا البكور ميتي أن ما أنت دوني وحقوق فتو تصالحك بدو عيارسا قول كذا تاجتها بنالتي بالقول بنالتي هذا الوارد جاي يسكعنا كلا وارد ما عناه ما عناه يصير كيف إذا سنسى أنا كوجو بس لها استقرار تقرقي كده ماشي قال كعيل هذا waxaan ku xasuustaa qisadii iyaguna xinta badan gaalkacyo waxay leedahay ilaahay baa waxna dilo xuna nooleeya laakiin waxay leedahay qof ku damcaya naftaada damcaya iyo qof ku difaacaya labadaba way leedahay bedel khalaf aad baan u salaamayaa saaxiibkay maalinkaa meel fiican bay ka soo baxay maalinkii forever noloshayda aanu yara baqbaqdeen una xaybahay qof aanad waxba ku samayn qof aad waxba u geysan intuu saa ku eegay markaan hadlayna xuniyo xun ku dhalay hadalkayga u dhasaan saariya war waxaan heeday الآن كل يوم لقيا يمكن نقول هاي أو إن أركع هاي برنامج كنا دعوة كرو صحيح وده اللي كلا مالك هذا مقرن سايق بعض حفتي سبعة هاي تلو محايق كارد إحنا مقضي سواء شاسين ماشي ومرنا هنا سجنا وإحنا نكون هاي لكن 10 نواشة كم ده هم برتايم بهاي وحي أنكورنا هاي إحنا 10 كويسين هاي وحكوا لا وحويان بدل خلاف سيدي وكرب كي جوسو يستاجي لأن إسلام جالاتي لقيا باين تسكو حيبنا هايدين waxaad adigu magaalada waliba in xun iyo wanaagsan boo leedahay marka inta xun waxay ku geysata lama eegay inta wanaagsan baa laga raaca galkacyo waan jeclahay aad iyo aad boqolkiiba boqol maalinkii kuma xinta badnaa darto maalinkaas ahayd ma jiraa waxaad jeceshay inaad samayso laakiin wax kaa hortaagiin waxaan jeclahay inaan sameeyo laakiin wax kaa hortaagiin waxaan jeclahay inaan sameeyo horta waxyaaba badan baan jeclahay inaan sameeyo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan aan jecelahay inaan sameeyo first waan xaj ka tago soo cumraysto waliba kaliya inaan tagay ma jecli inaan hooyaday ka hayaan jecelahay insha Allah kulay waqtigun baa iska hortaagan ma oranaya waqtigun markuu isku toosto insha Allah waa waqtiyada firaaqada leedahay maxaad samaysaa waqtiyada firaaqada leedahay gaasraan qaata gaasradaasi ها هسه gaasra le kartayna sawayna loo geysan jiray gaasra inaga yana kala guraado maqash aadiya heestaas iska dhigistaa okay safaan maxay nolosha ku bartay nolosha 10 badan ma ka bartay maxaa kamid ah waxaa kamid ah sida farayna saanay usnaan dadku inaan usnaan dad badan oo aad mar walba u haysan karto inay yihiin dad ku dhow aad u haysan kartay inay yihiin dad aad ku kalsoon tahay aad u haysan kartay inay yihiin dad mar walba garabkaaga ah ayaa waxay noqonayaan mas adiga dhabarkaa qaninaya marka wallaahi noloshu way dhinacyo badan tahay maadaama oo ay noloshu dhinacyo badan tahayna waxaa lagaga baahan yahay adiguna inaad xidhato overcord dhinacyo badan oo dhankii loo jeestaba haddii la yidhaahdo maanta xagga masjidka loo yaacaya waa inaad dadka ugu horeysa haddii la yidhaahdo waa la dabaaltegaya waa inaad ugu horeysa haddii la yidhaahdo maanta waa la qayilaya waa inaad al tiraahdi bane haddii la yidhaahdo waa waxbaa la dhacaya waa inaad tirahdo ii bane markaa noloshu way dhinacyo badan tahay waxii la yidhaahdo ma garanaysaa waxaasaa la sameynayaaba yaa laga waayay halka jamaca meeshaad markaa dhex joogto ma laga yaabaa ugu horreyntaas inay dhib ku horseedo ها كل وحياة بدنا نجيب كورسات كراوي جيران لكن نواشة waxaan ka bartay wax alla iyo wixii ka hor yimaadaba sida aad u wajahayso wax ka hor yimaada laba mid uu noqonaya wax negative ama wax positive wixii negative waxaad ku wajahaysaa dawad garanaysaa imanka aday noqoto sheekadu naf gaadho marna carar bay naftu ku oranaysaa marna ma garanaysaa sad soo maarayn karayso bariyootan taas baa ugu yar adig mooyaan ayna adeegada waaray dil waa maxaad sameynaysaa waxyaabaha la yaray yiraahdana waa sorry marba baxda soo ya marka horta wixii dhibay ilaahay hay naga duu ilaahay wax dhibayna ma tuso maalinka ugu yar dhibta badnayna maalinkaas ahaydeen wadnuhu tan yara taabtaan sida toomi soo baxaya toomi jeeri ma daawo jirtay ciyaalnimadii wadnuhu waxa kan imanay maalinkaas aad markaa ilaahay yarto ay naga duduwee safwan waxaad nooga faa'iidaysaan hibada ilaahay ku siiyey ee majaajilada naga qosli aniga iyo asxaabtaba naga qoslidu waa dhibaatee waxaasoo mar haddaanad ma garanaysaa marxaladdu aanay ahayn marxalad
adduunya baydankeeda leeyahay qosol wuxuu iman karaa un qof wixii kula daadihinayo oo wixii aad ma garanaysay majaajiladu sideedaba waxa weeyaan amaka qoslintu waa su-aal iyo jawaab la isweydiisanayo oo isku habboon kana imanaya laba qof oo isfahmaya iminka su-aalaad weydiinaysa su-aalahaas in isku weydiinna waxa weeyaan su-aal iyo jawaab keliya jawi degan ku salaysan laakiin dee majaajilista haddii aad ahaan lahayd waxaanu odhanayno dadkan iyo inaguba waa firixday ahaan lahayd moogtahay laakiin sidii haddii la israado imka idinka ka qosliya waa inaan kacon mid calaa mid u kalinkileeyo marka haddii rag waaweyn u la kalinkileeyeyna waa mid subxaanallah ma jira saaxiib aad xagga ka cambaaraynaysa saaxiib aan cambaaraynayo anigu intaan ogahay saaxiibaday wallahi waa iska maashaalaysiin waana rag wanaagsan jaamac iskiisada waana waa ninkaasi waniga cambaarayay safar maxaad jeclaan lahayd isku soo gabagabeyso barnaamijkeena barnaamijkan se maxaad tala siin lahayd dhalinyarada doonaysa inay majaajilaystayaal noqdaan barnaamijkan horta waxaan kusoo gabagabeynaya bismillahi raxmaan raxiim dembigeena iyo dembiga waalidkan ba ilaahay dhaafo amiin qof kastaaba muraadkiisa oo aan macsiyo lahayn ilaahay midigtaa ka siiyo amiin qof waliba wuxuu doonaya ilaahay u fududeeyo qof kastaaba wuxuu leeyahay waxa isaga uu rabo laakiinse uu gaari kari leeyahay ka wax fududeeyana waa ilaahay u fududeeyo dhalinyaradan waxaan kula talin lahaa way jiraan dhalinyaro badan oo talent leh oo doonaya in ay tadawur sameeyaan ama jilaan noqdaan oo ay magac yeeshaan aniga waxaan odhan lahaa u jara kaadiya hibadeydi ku jirtaa banaanka u imanaysa laakiin wixii imka waa la badhaa suqeeyo sababtaan u leeyahay yara kaadiya waxa weeyaan nin bahal tiktok la dhahdo oo naga dambeeyay annaga waqtigii dee aanu magaalada isku laba rogi jirnay dee 18 19 meelaha bahal soo baxay oo lagu wada waashay oo ma garanaysaa dadkiiba ay si kala yihiin ayaa jira marka waxaan odhan lahaa dhalinyartan kula talinaya war qof kastooba niyo wax alle iyo hibada kugu jirtaa keliya ta waxaa iman kartaa waa inaad bulshada hor keento tiktokay youtube hadduu eebidinka leeyahay kii kale maxaa la odhan jiray snapchatkii ha kii kale muxuu ahaaye instagramkii instagram oo bahalaha aan isticmaalin bay labadaas yihiin moogta badan kuma badne qof kastaba meesha aad leedahay ama waad samaysan kartaa easy baa loo samaystaa intaad samaysatid habka aad u isticmaalaysaa ha noqdo hab positive ah ha is odhanin haddaad inan tahay magaranaysaay dhaho views bedelaysaa haddii aad inan tahayna ka sheekeeyuun magaranaysaay maamada iyo walaasha iyo inan kale de markaad wax ka sheegayso waa nin maamadii iyo walaasha wax ka sheegayo haysolan markaa views waxaa ku raadso wax walood isticmaalaysid ba talantigaaga aad kusoo gudbinaysid waxaad u isticmaashaa dhanka wanaaga aniga safar isku duuban waxaan leenahay kusoo dhawaada youtube channelka highmark like-ta iyo subscribe-ka iyo comment-ka iyo share-ka intaba la dhaafin waa sidaa uu idin sheegay waxa uu tiriyeyba midna yaan marti baa laydinka yahay dad marti soo xun ha noqonine ku cumaamada